Raisal wasaraha dowladda Somalia mudane Cabdi Sheekh Ahmed iyo wafdigu hogaaminayay ayaa maanta booqday qaybo ka tirsan magaalada Kismaayo oo ay kamid tahay isbitaalka Kismaayo dekada iyo waliba qaar kamid ah xarumihii dowladii hore oo dhawaan dayactir lagu sameeyay. Raisal wasaraha iyo wafdigiisa ayaa ugu horeyntii booqday xaruntii hore ee caymiska taasi oo dhawaan la dayactiray lana doonayay inay noqoto xarunta baarlamaanka ee maamulka Jubbaland. waxaana warbixin arrintaas ku saabsan ay kaga dhageysteen qaar kamid ah mas'uuliyiinta maamulka Jubba. intaasi kadib ayuu wafdiga wuxuu booqasho ku tagay isbitaalka degmada Kismaayo halkaasi uu warbixin kaga dhageystay madaxda caafimaadka ee Jubbaland iyo dhakhaatiirta isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo. waxayna ugu warbixiyeen xaaladda isbitaalka iyo bukaanada jiifa oo ay sheegeen in xaaladooda aad u cakiran tahay. wuxuuna Raisal wasaaruhu ballan qaaday inay gacan ka geysan doonaan caawinaada dadka dhibaataysan ee isbitaalka ku jira, isagoo sidoo kalena ballan qaaday in 2 maalmood gudahood ku soo gaarsiin doonaan magaalada Kismaayo deeq raashin ah. isagoo booqashadiisii wata ayuu Raisal wasaaraha tagay dekada caalamiga ee magaalada Kismaayo, wuxuuna ku soo wareegay dekada oo ay ku xiran yihiin maraakiib iyo doomo wada ganacsi. isagoona warbixin uga dhageystay maareeyaha dekada magaalada Kismaayo Cabdullaahi Dubadshiil. ugu dambeyntii Raisal wasaaraha ayaa xariga ka jaray bangiga dhexe ee magaalada Kismaayo kaasi oo dhawaan dayactir lagu sameeyay. wuxuuna goobta ka sheegay inay tahay tallaabo horumar leh, isagoona tilmaamay in arrintani ay muujinayso shacabka ku dhaqan Jubbooyinka ay go'aan ku gaareen inay dib u dhistaan dalkooda. أنا هو تاجر أيمان سوا. شوف بقى يقول لك على البرمرين دل. سبحانه. وأبورس في تقال. والجسو في شراف. بتقال لي مشاكل. ما تو institution. institution. تقال. هذا اليدين. كقاطنا يدرس كذا عند ويل شوية لا وحاولت على كل المرات إن كشة قيسي سول عقدي ومصر شلون دولة الجبلان وحاول عشوتين السوق والسوق هالكا مصر شبطه اليدنا وأرينا مهمة waxaan rajaynaynaa inuu bangigan noo shaqeeyo degdeg u shaqeeyo kuwa kale bangiyada ganacsiga iyo horumarinta iyo kuwaasna ay noo furmaan. Cabdi Casiis Xaaji Maxamed Garyaqaan TV-ga caalamiga ee Kalsan magaalada Kismaayo.